waxaa hadda soo galaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Saalax Axmed Maxamuud Silayo waxaa lagu soo dhameeyay gacmo furan soo dhawow madaxweyne بس هتودي وهلو نقضو waxaanu balan qaadnay inaan wax wada badan qad qabsano kalooyin badan bayna siiyeen wax badan oo wax ku oora oo dhinac walba leh dhinaca nabadgelyada dhinaca ganacsiga iyo dhinaca wax wada qabashadaba ayaan ku balan inaan ku wada qabsano waxa taana ugu xigay safarkii aan ku tagnay dalka Itoobiya aan jaarkanahay halka aan soo aragnay ra'iisul wasaaraha iyo dawladdiisa oo iyadana si caleemo qoyan nagu soo dhaweeyay prime ministerka Mele Zenawi iyo dawladdiisu ay nagu soo dhaweeyeen halka iyagana waxaan ku galay kuna qaadanay wada hadal dhinacyo badan taabanaya oo wax ku oola oo iyagana marxabaysiin fara badan iyo walaalnimo fara badan iyo ballanqaad aan wada qaaday inaan wax wada qabsano xagga ganacsiga xagga isgaarsiinta xagga isticmaalka dekada berbera oo la arko inay mustaqbalka noqoto meelaha ugu waaweyn Itoobiya oo kamid ah dad population-keeda ama dadkeedu maanta ka badan yahay 80 milyan ka badan yahay oo ah meelaha ugu waaweyn ee mustaqbal ku leh geeyaga ay ku noolahay ay dekada isticmaali doonaan ay aad u isticmaali doonaan ay ka faa'iideysan doonayeen dhaqaalaha ay tahay dekada berbera iyagana ballanbay halkaas ay noogu qaadeen halkaan wax qabasho badan iyo saaxiibnimo badan iyo xagga nabadgelyada oo iyadana aan wax ka wada qabsano oo wax iska taraya iyadana nooga soo kordhay halka kan intii aan joognay waxaanu la kulanay waa ka warqabtaan shirar badan baanu qabanay waxaanu la kulanay kulanka wasiirka arrimaha Afrika UK Harry Bellingham waxaanu la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda ayaanu kala kulanay madaxdooda la kulanay waxaanu la kulanay Lord Trisman waxaanu la kulanay kulankii shirkii aan ku qabanay Chatham House sida aad ah ilxaad kale la isugu yimid marka arrimahaas oo dhan waxyaabaha ka wada waxa kamid ah arrimaha ganacsiga sidii ganacsatada iyo maalqabeenka reer UK ay u maalgashan lahaayeen Somaliland ay u maalgelin lahaayeen wuxuuna qabsan lahaayeen waynu dalka taariikh fara badan bay naga dhaxaysa historical relationship ayaa naga dhaxeeya waxaanu jecelahay inuu relationkaasi maantana mid xagga nabadgelyada iyo xagga ganacsiga iyo xagga siyaasadda wax wada qabsi badan naga dhaxeeyo weeye waxaanu jecelahay inuu u koro kaasina isaguna noqdo mid wax ku ool ah oo u gudba xagga wax tacliinta wax naga taro oo wax naga qabto xagga maalgashiga oo la dhiirigeliyo xagga tacliinta wax naga qabto xagga wadooyinka iyo dhinac walba dhaqaalaha horumarintiisa oo gacan naga siiyo
iyadana waxaan ku rajo weynahay inay noo hirgeli doonto insha Allah tacaala oo halkaana wax warqabsi iyo wax ku oolhi oo inooga iman doono marka halkaana hawlahan wax badan baa nooga socda waxaan kala oo muxuu ahay idin sheegayna muddadii dalku aanu jiray maamulkan uu jiray muu ahayn muddo aad dheer muu ahayn muddo gaaban mooye muddada gaabnood ee aanu jiray wixii aanu ballan qaadnay ee aanu ka ballan qaadnay dadweynaha reer Somaliland hadday tahay dhinaca horumarinta dhaqaalaha hadday tahay dhinaca inaanu dhisno maamul tayo leh oo kooban oo yar oo aan ahayn dhowr iyo 50 wasaarad ahayn ee ah wasaarada aad kooban laakiin dad waxgarada mutacalimiina waxqabada waxaanu kala ballan qaaday inaanu corruption la dagaalano waxaanu ballan qaaday inaanu wadooyinka dhisno waxaanu ballan qaaday inaanu dhiiri gelino wax soo saarka dalka dhinaca waxaanu ballan qaaday inaanu cadaalad ka sameeyno intii muddadii aanu jiray mid walba waan ku dhaqaaqnay waxyaabo badan oo dowlad kooban baan dhisnay dad mutacalimiin oo ka dhisay waqtiin boqolkii maalmood aanu ballan qaaday inaanu mashaariic badan fulino mashaariicda intoodii badneed qaar roobkii laga xidhay mooyaane hadday wadooyin tahay hadday bridgeski tahay hadday muxuu ahay waxyaabihii kale la qabanayay tahay hadday iskuuladii la dhisayay tahay kulligood waanu fulinay intii waanu qabanay wax noo bilaabay wax yar nooga hadhay weeye marka iyagana waxaanu ballan qaadaynaa inaan siday aanu ku ballan aanu ummadda u sheegnay aanu ku fulin doono oo ay sidaa noogu socon doonta ayaan iyagana muxuu ahay ballan qaaday dhinaca nabadgelyada waa ogtihiin mantaqada aynu ku noolahay waa mantaqad ay ka jirto dhibaatooyin fara badan iyo xasilooni darro badan ay ka taalo waxaa walaalaheen jaarka ee aynu Soomaaliya la yiraahdo waynu ka warqabnaa dhibaatooyinka ka socda iyo xasilooni darrada ka jira inay lahayn wabiyaal iyo bado inoo dhaxeeya buuro inoo dhaxeeya ma jiraan dhibaatooyinkooda hore waxay nooga soo gaadheen maantana way naga soo gaari karaan maalin walba halkaa waxaa laga soo diraa dad baa laga soo diraa waxaa laga soo diraa horena waxaynu uga aragnay dad ligooyin iyo dhibaatooyin inoo geysta meelo badan baa lala dagaalamayaa laakiin waxaan idiin sheegayaa maanta oo idinku bushaaraynayaa shacbiga reer Somaliland hadduu culamaa u diin yahay hadduu waxgaran yahay hadduu dadka odayaasha dhaqanka yahay haddii dowladda uu yahayba in ummaddu meel ka soo wareejeedo si u wada shaqaynayso ay tahay waxa ay isku haleynayaan dadkeena iyo shacbigeena ay tahay waxa ay isku haleynaysa dowladda Soomaaliya ee maanta halka ka dhisan iyada iyo shacbigeena gacanta haystaa inay diyaar yihiin inay dalkooda daafacaan oo kaliya maaha laakiin inay dhibaatooyinka noocaasa ee ka imanaya ay digtooni ka qabaan oo ay xasiloonida dalka iyo deganaanshihiisana ay dhowrayaan oo ilaalinayaan oo ka wada shaqaynayaan sida ay tahay waqti meelaha qaarkood had iyo goorale dhaqankeena deegaamaha la isku qabsadaa khilaafaad baa ka yimaada hadday xagga daaqa tahay ceelasha tahay dalkada la qodaya tahay baradhawato meesha la yidhaahdo qorolugud waxaa ka dhacay isku dhac baa ka dhacay ka yimid dadka deegaanka meelahaasa deegaamadaasa deegaanka waa loo gurmaday waa la wada tegey waa laga shaqeeyey ciidamada qaranka Somaliland odayaashii deegaamada dhinac walba haatee iyo inta kale waa la isugu tagaa hawsha gacanta ayaa lagu hayaa meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa waxaan idin sheegayaa maanta haddii ay dhinaca siyaasadda tahay iyo haddii ay tahay dhinaca ilaalinta nabadgelyada ciidamada nabadgelyada iyo ciidanka u taagan heeganka u ah ee ciidanka qaranka dalka daafaca inuu mar walba diyaar u yahay inuu dalka sidiisa u daafacayo ilaalinayo xuduudiisa ilaalinayo inagoo aan cidda ku xaqulbaynin marka Somaliland way sidaa heesaa ay maqalnay Somaliland way dhaqaaqday wayna soconaysaa
iyo wasiirka dhaqaalaha qorsheynta qaranka iyo iyagana halkan garayaalka iyo mas-uuliyiinta kale la socdaba oo iyaguna ay arrimaha wax ka sharxaan oo wax ka yidhaahdaan oo kasoo kordhiyaan marka walaalayaal aad iyo aad baa umahadsantihiin allah yaxallo guuleyska allah yaxallo